Gudida guud ee beelaha bariga Burco, bariga Saaxil, galbeedka Sanaag iyo gobolada Saraar iyo Buuhoodle oo warbaahinta kula hadlay magaalada Burco ayaa dhaliilo u jeediyay xukuumadda Soomaaliland oo hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Gudidu waxay sheegeen inay madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumaddiisu ay si gaar ah u beegsanayaan ilaha dhaqaale ee ganacsatada iyo shaqaalaha dawladda ee beeshooda. Gudoomiye ku-xigeenka gudidaasi Cismaan Xirsi Jaamac, xoghayaha gudidaasi Kayse Jinje, gudoomiye ku-xigeenka labaad ee gudidaasi Barre Ismaaciil Cawad iyo Cabdirasaaq Salaad Faarax oo kamid ah gudidani waxay xukuumadda ugu baaqeen inay joojiso cunaqabataan ay sheegeen inay ku hayso ganacsatada beeshooda. Waxay sidoo kale taageereen hadallo ka soo yeedhay Boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow. Anagu waxaan nahay gudidii guud habar jeclo nalaagama baran inaan tiifiyada ka hadalno oo dawladda ka dhaliilo nalaagama baran laakiin maanta waan wax aan ka adkaysan kari weynay baan noo muuqda. dawladdan waa dawladdii aan u dhisnay ee reerku taageeray labada gacmood bay isugu geeyay laakiin waxaan ka filan weynay ayaa noo muuqda. arrimahaas waxaa ka mid ah raaxilalka maanta Muuse Biixi kuwii ugu yimi iska daa wuxuu tare ayuu dhammaan ka dhameeyay. waxaan odhan karnaa 70% uu ka saaray iyagoo ay sidaa tahay aan haddana lahayn muxuu baa isbedelaya. maanta waxa dhacday oo uu soo dhigtay inuu qof kasta oo jooga meel oo baayac mushtariya oo arrin yar wada kuwa ugu yaryar ugu hooseeya ilaa kuwa ugu sareeya ee ugu waaweyn mid walba cunaqabateen baa mushtariga u soo dhigto iyagoo uu si guud ugu soo dhiganayo in wixii gacmihiisa yimaadaan. waxaanu leenahay madaxweyne aanu ku leenahay oo ummadda u dana oo beeshaan anagu ka soo jeedno u dana in laga daayo cunaqabataynta baa mushtariga. waxa dhacday in shidaalkii maanta taagan yahay badda taagan yahay oo wax allaale wax maxay ahayd lagu haysto aan garan laanahay. waxaan leeyahay madaxweyne dadku waa dadkaadii gumaysigii laga cararay ayaa muuqda. waxaan leenahay baa mushtariga siida uma dul qaadanayno kuwii yaraada la haystaa diyaaradii kuwii ka mas'uulka ahaa la haystaa kuwii shidaalka ka mas'uulka ahaa shidaalka keen jiray la haystaa kii warshad meel ka sameeyay iyo warshada yar baan umada u abuurayaa la haystaa. dadaan u dul qaadanayno maaha waan xamili karnaa maaha dadaan filaynin madaxweyne waxaan leenahay ma xamili karno maanta waxa ka dambeeya waxa wax ka bedel baan leenahay. waxa weeye halkii laga dagaalamay ee dawladda Maxamed Siyaad Barre lagu dumiyay ayay maraysaa mid laga aamus karayo maaha. madaxweyne inta ku hadhay anigu waxaan ku oran lahaa inta ku hadhay ganacsatada na ka qaad wixii ay hayaan ka qaad. mar haddaan u bareersan tahay waxba ha la hadhin beeshuna way tashan doontaa talay ka gaari doontaa arrimaheeda maadaama oo aan dhag jalaq u siinaynin. dhammaan waxaanu taageersanahay oo uu matalaa boqorka hadlay beesha weynta uu ka soo jeedo. waanu taageersanahay hadalkiisa waa biyo kama dhibcaan hadalka boqorku yiri waanu taageersanahay annagoo ah gudidii guud ee habar jeclo. adigoo wadani baa tee jecel inaad waarto anigaan kursiga ka wadeen weedna kugu raacsan ha noolaatay iyo weedhahanada ku waalahayo iyo waranka hoostayga midow waaba kala xawl. horta dee baashu waa baashi aanu dooranay ee aan halkaa dhignay هذه هذين أنا نقول رعيني إما كان تهدي عن يدو إسكاكاية إرين حسب جوارت الدواننا باقاني وحدارية هدي حلالكي وحي ماشي عاد قلت أنتو دي أنا الله عم صدق عاني تشوفين وحي كلامات كقاطي هدي شغال الدولية تاي هدي إذا ما تاي وحي بقى لو كات كدك هدي حلالكي وحي مال فردي بكيردو وتلا هذي ذوك السبع بدل مراكب تتاعي تيار هذه كتشوفسي أنا مدحوينا كلنا يبدو هذا هدي أي كلنا نقطنا سيدا وكبدل تي هدي عاد كمار مويدنا تي قوة فيرك بيشور وكتشانيا أرنكو وكتشانيا هدي تهاي شقاله الدولة سراكيشي حبنه يسو حقه الهيد مدحوينه وحو خوخ الريادة يؤتي شرته ولاغا ولاقاضي تايو شرته waxaa dhacday beeshaan ka soo jeedno in taas markay soo dhamaatay xilalkii iyo qaybtii dawladda aan kale dhamaan markay soo dhamaatay intaan aan musnayn ayaa waxa dhacday in ganacsiga la soo jeestay. waxa dhacday in la cunaqabateeyay oo la xidhay kuwii keenay shidaalka oo la diiday shidaalkii dejiyaan kuwii warshadaha samaystay oo lagu khasbay waxyaalaha aan kari karayn kuwii haamaha kuwii wakiilada ka ah agency ka ah shirkadaha caalamiga ah ee waddanka maalgashiga u yimi iyagoo awgeed shirkadii lagu joojiyay. marka ay sidaa tahay madaxweynaha mar hore aan kala hadalay arrimaha laakiin wax jawaab ka baanan helin. anagu waxa leeyahay madaxweyne ka daabaan leenahay oo dib isugu noqo cunaqabateynta xoog galiyaan Maxamed Siyaad sameeyay ku wada ka daabaan leenahay. arrimaha ka hadlay Boqor Buurmadow waanu ku taageersanahay. Jaamac Salebaan Cumar Bulsha TV magaalada Burco.